السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال halkan naga daawanaysan waa telefishinka caalamiga ee RTN TV magaalada Burco. Daawadayaal barnaamijka waa barnaamijkii bandhiga jacaylka waxaana inoogu martiya Cabdilaahi Maxamed Cabdilaahi abwan waxaan ku leeyahay mar koobaad iyo mar labaad waxaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga aad noo soo hortay waxaana mas'uuliyiin barnaamijka daawadayaal aynu ku soo qaadanaynaa qisooyin jacayla sheekooyin hadba waxaan isku leenahay daawadayaashu way xiisaynayaan ayaan ku soo qaadan doonaa laakiin intaanin abwaanka u gudagelin abwaanka waxaan doonayaa inuu iskiin yar baro abwaan waxaan doonayaa inaad adiga iyo daawadayaasha isbarataan aad iyo aad baad mahadsantahay walaal xamda aad baan kaaga mahadcelinayaa de horta xamday taariikhdu saa uma weyno de bulshadu way aragtaa intaan leegahay baan filayaa de ahaan iyo muuq ahaanba ma weyni markaa qisadeeda haddaan ka sheekeeyo si kooban gobolkan togdheer baan ku dhashay magacaygu waa Cabdilaahi Maxamed Cabdilaahi jirdac layguna aanayso gobolkan togdheer baan ku dhashay iskuulka waxaan wax ka bilaabay iskuulada Sheekh Yuusuf Alkownin iyo Sheekh Ibrahim ilaa aan secondary ka baxay Sheekh Ibrahim de dugsiga quraanka ilaa isla malcaamadina halkan u bande burcun buu ahaa kulley waxaan filayaa backgroundkaygii intaasan imkana jaamacad ayaan wadaa insha Allah taala anigu uu magacaygu yahay Xamdi Faarax Xuseen Xamar Xamdalaki waxaan gudaha ugu jirnaa barnaamijkii bandhiga jacaylka abwaan waxa jirta horta dadka badankoodu waxay ilaahdaan imika hablihii barigi hore geela laga bixin jiray intaas waxa loo soo bandhigi jiray imika waxa dhacday in guurkii hoos ku dhac ku yimaado sababta maxaa la oran karaa maxay tiri guurkii hoos ku dhac ku sameeyay inantii marka lacag hagaagsan laga bixiyo faalo badan laga sameeyo wallahi aad iyo aad baad u mahadsantahay horta guurkii isbedel weyn baa ku dhacay xamda saad sheegtay waagi hore qiimo iyo miisaan culus buu ka lahaa dhaqanka Soomaaliyeed iyo tixgelintiisu lahaa laakiin maanta waxaad moodaa farqi weyn oo ballaaran inuu u dhaxeeyo sababtuna waxa weeyaan waa dunida casriga ah iyo waqtigii isbedelay iyo dadkii oo maartay dhaqankii asal waxa horta waxa la haysto inay dhaqanka tahay waxaad moodaa dhaqankeeni in kii reer Yurub uu maanta saameeyay halkii ay xoolaha inanta ama laga bixin jiray geela faraska qoryaha maanta wax laga bixiyaa wax lagu xisaabtaa kaliya waa dollar mid baa de wax laga hayay inan baa laga soo doono markaas la yiri wax lagu siinaya kota geela waa lagu yareeyay hablaha waligood ba de boqolaalba laga bixin jiray wuxuu yiri adeer anigu kota kan geela ma hayn karaye soo lacagay iyagoo dollar ah maxay ku noqonayaan garaad ha marka xamda guurku isbedelay waxaad arkaysaa dad de xaqii jacaylka hadaan ku eegno labada qof isma iyagoon aad bay soo baran ama aan aad bay soo maxaan ku idhahdaayay aan wada sheekaysan ama aan muddo wada socon ayaa guurkeediisa la sameeynaya ka ama ujeedada laga leeyahay oo ama inanku wuxuu sameeynaya in maartay aan uu ku degdegay oo aan inanti ka fiirsan oo aan iyada magaceedii iyo shakhsiyadeedii iyo qoyskeeda ha marka waxa jirta de qaar muraad isu guursadaan way jiraan oo markiiba kala noqda marka kulli de waxan guurkan waa guur degdeg ah baan oran karaayo abwaan waxa jirta xubbigii xabsiga galay oo ku dhamaaday 4 qof kulli dadku waxay isweydiinayaan telefishinka RTN naga daawanaya soo xubbiga xabsiga galay muxuu yahay laakiin de abwaankii bay garabkayga fadhiya abwaan jirdac maxay tolay dhinacayga fadhiya daawadayaal abwaan jirdac xubbigii xabsiga galay 4 qof ku dhamaaday ayuu noo guda gelayaa aad iyo aad baad u mahadsantahay xamda saad sheegtay waxa jirta qisadii xubbigii xabsiga galay in bulshada u haynaa haddaba haddii aynu hordhac yar ka sameeyno isla qisada xamday waxaad maqashay 2 qof ayaa dibadaha ku kala maqan oo midna dalka jooga midna dibadda oo marxalad jacayl oo loonan karo lagu qiimeeyo ay jirto la yiraahdo labada qof halkaas kala joogan waxaanu maqalay de qaar dalka jooga oo qisooyin laga sheego la yiraahdo midna miyibu tusaalahan jooga midna magaaladana kala jooga wax la yiraahdo kale dad iyagoo wada jooga ba jacaylka aamusan ku dhacay oo qisooyinku waa farabadan oo mid walba de marxaladeeda ayaa lagu qiimeeyaa laakiin qisadan waa qisadii
aadka u xanuunka badnayd ee intan qisaarkaiyo amaan maqlay aadkay saamaysay dareen ahaan iyo qalbi ahaanba qisadan waxay ku qotontaa oo intaaba ay kaga duwan tahay waxay meel aada looga cararo oo dadkuba aanay jeclayn ayay qisadan ka dhalata oo jeelka ah jeelkiina way ku dhammaan doontaa marka haddaan qisada hordhaceeda ka sheekeeyo aniga igumay dhicin laakiin dad gobolka Sanaag ayay ka dhacday inaynu carabowna aad baan u jeclay marka magaalada Ceergaabo marka inan la sheekaysan jiray marka ugu horeysa inankaasi magaalada Hargeysa ayuu u doontay waxbarasho inantii waxay isku ogaayeen haddii ilaahay ka dhigo markaad 4 sano soo dhamayso waynu iskuursanaynaa ahdi iyo ballan bay meel wada dhigteen ninkii 4 sano uu soo dhameeyay iskuulkii jaamacaddii wuu soo noqday si degdeg ah wuxuu xiisaha iyo hilowga iyo qofka jacaylkuna wuxuu ku macaan yahay kala fogaanta runtii wuu soo noqday inantii wuu waayay waqtigii uu joogay ishiisu waxay qabato wuxuu ku jeclaa iyada horta marka familiga laga yimaado absolutely marka inantii wuu arki waayay inankii waxa ku yar adkaatay inankii inuu dee cid uga ama hadal haysaba uu arki waayay wuxuuna dee dareenkana labadoodunbuu ka dhexeeyey markii horeba dee cid lamay wadaagayn inankii waxay ku kaliftay inuu inantii gurigooda tago aabaheed iyo hooyadeedu soo waraysto ay ku yidhaahdaan adigu xaggaad inantan ku ogey goormaasay kugu dambaysay wuu warramay xaqiiqduu sheegay waxa jiray iyo axdiga isu qabteen iyo maanta waxa soo celiyeen inantii xabsiga ayay maaragtay ayay gashay ayay ku jirtaa baa lagu yidhi inankii intuu booday ayuu degdeg u tegay xabsiga dabeetana wuu u yeedhay magaceedii ayuu u yeedhay inantii baa kasoo baxday dabeedna waa laysku dhegay inankii markaa talo ayaa u qaata wuxuu is yidhi niyow maanta dee jacayl dee way isu sii boholyoobeen runtii waana isku naxeen absolutely dabeedna inantii ninkii go-aan buu qaatay wuxuu yidhi inanta waan mehersanayaa deedna odayga wuu yaaba wuxuu is yidhi dee inanta isaga meheribo intaa markaa inantii odaygiibu dib ugula noqday reerkii sidii saxda loo meheriyey inankii halkii jeelkii ayuu aroos loogu dhigay oo guri looga sameeyey waxay noqdeen qoyska ugu qaalisan ee xabsiga marka waxa dhacday iyaguna iyadoo intaas socotay qisadii labada qof oo iyaguna mid ay jeesha ka mid ah oo qof dilay ayaa jiray isaguna markaa inan iyaduna xora oo dibadda dee aan iyadu wax kiisa lahayn ayaa jeclayd inanka jeelka ugu iman jirtay calaya xaal adigu sheekadii waxay socoto inankii waa la dilay subaxdii la dilayay way sarkeen waa la kala fujin kari waayay wax laaleey wixii askar meeshaa joogtay ama wixii dareen lahaay halkaa joogay aad bay u qiiroodaan labadii qof waa la kala fujin kari waayay saakana waa la dilayaa ninkana ku darso ninkii wuu dardaarmay in ilaahay jiro in ay xusuustaas keliya inay ku noolaato isagu ay wax dhan u tahay waan ma la odhan karaa inantii iminka jacaylkii dartii ayay la liidataa mise inantii sal way ilowday way iska guursatayba wallaahi walaal kolley dee naftu qofka cimri baa ku socda waxaana laga maarumaa baa imaanaya oo qofka dee markaan qofka meelba ku ogeyn ayay ugu xanuun badan tahay laakiin qofka wax laga yaabaa inuu samro oo maadaamanu diin dee aynu inagu dee dad diin ku dhaqmo islaam aynu nahay way hagaysaa oo waxay samayn kartaa inay nolol fiican ay u gasho marka maansadii aan dareenkooda ku cabirayay 4 qof ayaan gelayaa hurdadii ma leedin xalay Sanaag xeebtii bariba faallada xogteed galay dareen weeye xoog weyn qiso weeye xeel dheer jacayl waa xanuun daran marna waa xurmiyo malab marna waa xusuus reeb marna xiiso dhalanteed aan lahayn xakama adag xulashada laba israbay caashaqa xasilin jiray xisiyamaan iskaga mida waayuu kala xergeeyo ballanqaadka xaajada xilligiyo gugooda aan isxalaashan doonaa kolku xaalku uu yahay
xidigiina soo baxay dhulku yahay xareedii dhirtu xididka hoosiyo faraq wada xantooba ah xaadaysi yahay ubax wiil xafiday aqoontoo xagaagu u afraadsaday xafadaha hargeysiyo xawaadla-aan ka dheeraan markii uu ka xaadiray xuralcayntii uu rabay inay wada xadreeyaan isku xiisa bururaan xikaayaadkii sheekee xanafta ay ka dhowreen axdigiiyo xidhiidhkii inay xerow yegleelaan nasiibkii ugama xilan farxad ku-xamdigoodii xagashuu ka kala riday xogogaalo noqoshada dadka xaalwaraysiga qalbigani xamili waa xidhka ay ku nooshahay xabsi orod intuu lalay xaajigii barbaarshiyo hooyadii xambaartuu xayndaabka ugu tegey xaajigii barbaarshiyo hooyadii xambaartuu xayndaabka ugu tegay la wadaag xaqiiqada iyana kama xijaabine runtu xagafu ka siiyeen xabsi waa xorriyadoon weli may xabaalgelin xabsigay ku nooshahay xaggaa iyo xagguu dayey magaceeda xarafqaad xidig nuuroy sow timi xabadkay isgeliyeen meherkiina ugu xidhan xubbigii xabsiga galay hoy xariirta laga yeel dar kaloo isxurmayn jiray kalgacaylka xooxsaday mid markuu xinjiro qabay xaawalay u samir badan xay waxay la dhowrtoo xaalayso aragtida markuu xeerkii soo dhacay xukunkii qurhgooyada lagu yidhi xamsow hadal xigto maca salaamee xeeldhugashadiisii xabaddiisii muudayin xaadu sow ma wada kicin indhuu xuubka aragtida ilmo may xalxalis noqon xubnahooda may qoyn xaqaa iga adeegee anigaan xisaab gudan wahamiyaan xabaal galay kuma xumeeyo guulee ku noolow xusuusiyo xaakin weheshigiisoo xoru noqo adduunyada abwaan waxaa filayaa dadkii daawanayay telefishinka caalamiga r t n iyo barnaamijkii bandhiga jacaylkii ee xamdalaki inay qiiro daraaddeed waxaan ku quriyay shaashadaha daawanayaan abwaan waxaa jirta hees way nejima aada adigu samaysay erayada laxanka yaale heestan waxaa la yidhahdaa nejma heestaas nejma waa hees kolley iyadu lafteedu qiso ka dhalatay qisan ka sameeyey markaa erayada anigaale iyo laxankaba codkana waxaa qaada fanaan shabac oo naadab salaamayo markaa heesta qisadeeduna kolley nin wadanka ku maqan oo wadanka ka maqanoo dee yurub jira ayay qisadani dhex martay 5 sano ayuu jeceleeyey 5 sano qofkii uu doonayay gebigeenuba jacayl baan dhex muqooranayna marna xaggan u kacayna marna xagga u kacayna absolutely ninkaas markaa qofkiisu uu ag joogay muu waayin kama fogeyn laakiin awoodu ku sheegto ayuu waayay markaa jacaylka aamusan ayaa ku dhacay ninkaa markaa qisaduu ila wadaagay saasay heesta kusoo baxday walaa abwaan heesta erayadeeda wax manala wadaagi kartaa ma qaadi kartaa haddaan wax yar bulshada ka taabsiiyo heesta waxay u dhacaysaa sida tan najma aragtidaadii indhihii ku halacsaday ayaa ku haraad qabo aynigana ku jecel waa amar ilaahay uurkaygu siduu rabay afku sheegi waayo aadmibay la yaabo aadna ima ogsoonide ilaan waa adduunya adnaa dhiga abaalo adnaa aramidan qabo najmaay oofi weliga walaal oofi weliga abwaan waxaan ku adigii baa fanaa ku mareeyo waban kici gaadhoona ciyaari gaadha masraxin tegin baa ku odhe abwaan waxaa jirtaa tix gabaya oo curudkii suugaanta markaama markaad soo gelaysay baa ahayd maxaa kala suugaanta abwaannimada aad baad mahadsan tahay maasadan horta waa markii ugu horreysay aan dee waxana qaada aan sameeyo marka 2006 bay ahayd waqtigaas
waana jacaylkii ugu horreeyey markuu taabtay qofkii ugu horreeyey aan jeclaado dareenkiisa ayaan ahaa dareenkiisaan ku cabiray marka saasay ku noqotay kolley waxaan ka jecelahay wax kastoo aan caawa sameeyo ama aan waqti kala sameeyo iyadaan ka jecelahay waayo waa waxaan ku reedaqaaji abwaan ma la odhan karaa markii koowaad jacaylka bilowday ama aad dhex gashay xagga jacaylka maxay tolay inantii aad jeclaydna aanade kolley saad hore iigu sheegtay aanade aanadis calfan ma odhan kartaa jacaylkaasi si weyn buu adiga ku taabtay runtii kolley dee aad buu ii taabtayoo waa wax aad iyo aad aan dee markaan soo xasuusto kolley aanan iloobi karin waana waxa kolley dee dareenka aan ku cabiray aan waxaan ku bogsado kolley ka yeelay markaa waa bartamihii aan jacaylka ku jirnay waqtigiina ay noogu fiicnay iyo waxaanu rajayn jirnay iyo qaabkaasay u dhacaysaa waxaa ku magac dheer tahay gocasho gacalay jacaylkaad guyaligu abuurtee guudka iga saartaa igumaystee anigoo gunnadii la cunayiyo iga gooyey oonto gab imaayo aniguyo gabbalku markuu dhaca goodkii abeeskuba godka ay ka yaacaan baan keligay gadoodaa gegiyaha wareegaa galowgiyo shimbirahan gohooda u heliyo ka dhigtaa walaa ruma gabal dhaciya waa beray adaan kuu gallooye inta aanan geeriyoon kafanta laygu gawsin godka xabaasha lay dhigin ii soo garowo garabkayga soo joog na guubaabayga maqal baane waxaynan gayaanka adaan kaaga goosto gabdho kale ma waayine anaa kuu gocanayo garashadaad lahayd iyo gacanqaad wanaagiyo guddoonkaad u dhalatiyo gobonnimo daraaddeed markuu gacalku soo galo gogashaad u qaadaa gasiinkaadu keentaa galladaaba kuu qoray waa lagugu gadaamee gaari baad u tahay dumar annagoo cashadiisiyo cishqi igu gamuurmaan aawadaa la golongolay oo ilmo goboda la hayaa ee goormaan ka dhigannaa inaan guri yagleelloo galbiskiyo ciyaaraha gaaf aan u qabannoo garabkeenna laga tumo guulla wuxuuna siiyo wiilal iyo gabdhabalo marka aan gabownay geeridu xalaal tahay noqdo ubad gargaarlo innagana garab gala guul iyo rajee khayr ha ku gebagabowdee geeraarka maansada waxaan uga gol leeyahay ruuxii garaad lee geedkaas soo maray baa ka dirgigaxanayo gocanaya wuxuuya intaasay gaga eg tahay haddaynu yar nasanno aynu maxay ahayd tolay kasoo noqono maasida abwaan ku tiriyey kolley iyaduna si weyn ba iyaduna inoo taabto waxaan ku maasweyn si weyn noo wada taabtay abwaan ma jiraan heeso aad taageerto oo fanaaniinta waaweyn ay leeyihiin waa su-aal aad iyo aad u fiican walaashay xamda laki kolley runtii dee way badan yihiin fanaaniinta soomaaliyeed oo dee laakiin waxaan marmarba dee waxaan dareen ahaan baad u qaadanaysaa anigu fanaankan aad heestiisa ama heesiisa aan aada uga heli jiray waa cabdilaahi sulfe fanaan layidhaaho iminka waxaan u malaynayaa iminka waa sheekh waan filayaa sidan igu maqaalaa wuxuu ka mid ahaa fanaaniintii waa beri markaa fanaankaasaan aad heesihiisa aan aada u jeclaa heesta bal erayadeeda hadda mar fanaanka weyn aad taageeri jirtay waxaan doonaynaa heesta inaad erayadeeda aad wax nooga taabato si ay daawadayaashu ilaa maanta way qiiraysnaayeen qiirada weer kacaan mahadsan tahay horta inkastaanan fanaan ahayn laakiin haddana bal waan fanaankii inaan dee maaragtay waan isku dayayaa walaal fanaanimadii xoog kama maqlidee waayo because codkii halkiisa baad dhigaysaa wallaahi xamdaay caawa fanaanintii waad igu diraysaa way ila tahay walaal waan isku dayayaa waxay u dhacaysaa heestan habaabay baa la yidhaahdaa waxay u dhacaysaa sida tan hanankaaga wanaagsan markaad i hor joogto sida heega daruura oo kaliishihilaacday ayan ku handadaayo awadaa u haraaday howlbaadi badoo habaabay helow howlbaadi badoo habaabay helow hilibkaygiyo jiidhka halbowlaadu haydo haduway ku jeclaato wanigaanu heesaaye
ku hagoogo naftayda halis bay ku jirtaa howlbaadi bato habaabayelo howlbaadi bato habaabayelo waxaan hantileeyay abwan waxaa filayaa heestaas kulligeen uu cabdilaahi salfo qaadayo wayna wada taabatay inaga iyo daawadayaasha dhammaanteen isagana waynu salaamaynaa meel kastuu dunida daafaheeda uu ka joogo waxaynu ka salaamaynaa halkaas salaan hawada usoo marinaynaa in gabay la idhaahdo damac guur bal abwan waxaan doonaynaa halkaa damac guur isagoo qudhiisu waxa uu weyn quseeyaa in guurku quseeyaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay xamdallaki kolley waa dee guurka haddaanu jacayl jirin inta badan horta inkastoo calafka ilaahay qoro oo uu jiro laakiin dee qof waliba dooqiisa ilaa uu qof la soo sheekaysto oo jacayl soo dhex maro waxa weeyaan waa jarjarooyinka marxaladaha guurka loo soo maro markaasaa calafku ama uu kala geeyaayo labadii qof ama iswaayaan inta badan way isku guulaystaan marka guur haddii la sheego dee jacaylkiina meesha waa ku jira absolutely runtiina kolley dee gabaygan waxaa la odhan doonaa waan filayaa ninkani waa siday u yaqaanin waa kala joog anigu ma odhanayo single oo dee singleku aad bay bulshada u sheegtaa laakiin kala joog baana ugu aqaanaa markaa waxaan ila wadaagaya un inta kala jooga gabaygan haa markaa wuxuu dhacayaa gabaygii sida tan indhawaydba gabaygii ma tirin igu gaalolaaye geestiisa mabayginoo wanka gaabsadaye darunbaa gujaynayo gabay haalkiisii angoorfeeya caawo kalan garumaariyaye gediyowga siinkii madayo goriyo ayaane goomane ayaanahoonti waan gabaye gurdankaiyo sheekiyo ciyaar weyga gureyne goolaaftan maahee walaal gawayaan ahaye nin ragii hadduu guur damcuu geliyo labtiisa waa inuu go-aan qaata uu xajaduun galoy markuu gogol la seexdee hantiyu gula mahadshaye adduunyadan gengiimanay buuxda guuradeedu wargaaliyo islaam waxaa ku sugan guurku ou nolole anna gabaadhi aan doonayaan racdadeed galaye taalooguna iyo baan rabaa inaan sahan ku guraye gabin maayo socodkana jaraan guusha soo helo angoorfeeyo geedaan jecloon gabay ku falley inan gaariyaan doonayaa gudataa hawsheeda oona hadaalka gowlgowlinoo wahe guura baasin gurigeeda laga waayinoo guri aan baranin gef xumaana laagu sheeginoo cebka goobanaysa dhaqankeeda aan goyninoon gesna uga leexan gedaa loo asteeya waana garashaa xeldheerleh gulahayna qurux siiyay oon cidi ku gadhaynin midabkeedu guduudiyo madow yahay goboda marinka gocondhana ahaynoon gabnina u dhalanin oo aan galangalcoobinoo baruurtu gosan maaradeeda waa inaanay gaatiraanay noqon gubaysaadhayaye waa inay timuhu gaadhayaan misigtaa gudkeeda waa inay gamcaa ilushaa xadigoogashaye waa inay gararyaha ku ladhan luquntaa goysaaye waa inay cabadhyaha gudbani naftani gamaadidaye gadaadiyo kubka lagu rakibay waa inuu dareen gaara leeyahay gadhka waxaanu feedhaa intaa gacalaadaydii guntigaygii waan giijistoo gonida u baxaye gadgadoonka maalmuhuna wii guubayaye gankaygii dhammayo waxaa yeelay guradhaa xameede guban buu warkaygii ka yimi iyo gegi awaraahe gidii habaar dugaag baa isidhi geliyaa fedhaaye aarsoo gadoodiyo libaax ganiyay helaaye
goodkiyo abeeskuna way gabraarsaday intaan goob xun soo maray ayaan laga geeyonayne goday iyo waxaan soo dhex maray gobi halkay tille gud haldhaalay reer gaarisood golongoolkaygidhe gadoomaan ilaawine xusuus garabay tahay galgaduudna ruux garaanaya marbuu gadhis leeyahay halkuu sayidku gabaygow tirshiyo galka ayaan tegay nasaashada garow waa kuwacan gebiya hanteeda waxaan soo gucleeya baanan laska soo galay gacantoodu way furaantahee rebay gaajada golihii abwaankiyo burcana gurigay weyaane cimilada bartii lagu galladay shikamaangoyne gabiile iyo boorame ma gabin gurtidii dhaqaane galbeediyo waxaan sii socdaa saylac guuradeeda cartaa waan ku gaafmeeraya galacda muuqeede soomaaliduba waxay gaanahayd ninkaa gobay baan ahay kuwaliba wuxuu soo galaanuun helingaayankey gohuguidayn la haddaan genyo aan helo kuwiyo waxaan bixin lahaa gelabaadankii faraskii garbahasha lahama raacilnaa galaabe garnayliyo waxaan dhiibilaa gumucraasaseeda wargaaf weynayaan dhisaan lahaa gara loo tumo xariir baan garba u saari lahaa wegeydaa sharafe farxad baan guddoonsiin lahaa gololodaydiiya waxba gabayguyuu ilaa gudbine waxaan kuu sogooy inaan guursada baan damcee i gudbiiya caw annaa guule waan tuugayaa goorun bay noqone abwan kolley halkaa guurka iyo meelaha badan wadigaade soo maray abwan waxaa jirta dhalinyartii berigii hore jirtay dee iyo dhalinyartii iminka jirta keebaad isleedahay jacaylka way ku dheereeyaan ma kuwan baa iminka waxaan ku guuriyay dee jacaylkoodu ilaa xad horeeyaan bise dhalinyartii berigii hore jirtay ayuu jacaylkooda horeeyay waad mahadsan tahaye dee kolley farqi weyn ba u dhexeeyo oo way kala horeeyaan waxaa jirtay dee xamdaay malaha adiga laftarkaagu dee waxoogay baad iga yartahay waqti aan waraaqaha isu qori jiray markaa haddaad garanaysa intii telefoonada ka horeysaad garanaysa markaa waxaa dhici jirtay dee waqtiyada daaqada waxaad maqlaysaa dee bostejo wax layidhaaha jira ama elde waraaqeed baa jirta markaa daaqadaha ayaa ama dhagax calaamadsan iyo kaabada iyo sheekada noocaasaba le markaa waraaqaha laisugu qori jiray inantu way soo gelinaysaa waad kala baxaysaa adna waad u dhigaysaa hadba kiina jawaabta laga sugaya inta badanna dee ninkaa daadahaynaya wuu ka qiimo badnaa wuu ka magaranaysaa asturaa wuu ka magaranaysaa si walba maanta Facebook iyo technolojiyad baa bara bulshaa jira social media ayaa jira markaa waxaad moodaa in ay kuwaas saameyn ay decrease de hoos u dhac weyn ay ku keeneen markaa horumar weyn bay sameeyeenoo berigii hore dee warqada yaraad qorto waa la arkaya laakiin iminka warqadaad qortay iyo waxaad samaynaysa cidi arki mayso waxaa aamusane horta markan dee horta wax badanoo faa'iidaa wuu leeyahay laakiin waxyaabaha kale ama uu ka mida akhlaaqiyaadka iyo barbaarinta ayuu maaragtay wuxuu yahay oo qofkii yaraa dee markuu wax laga yaaba ka 10 jirka imika maanta Facebook leeyahay markaa dee ma kala garanayo isagu wuxuu isticmaalay wixii fikirkiisa markaa kusoo dhaca buu samaynayaa wixii ma qiyaasayo laakiin faa'iidooyin fara badan social media wuu leeyahay walaal waxaan ku weydiinayaa oo ahaydba inaan mar hore ku weydiiyo in abwaannimada maxaa kugu kalifay ma hideehay soo jireen inta badan waxa la awow baa la iska dhaxlaa laakiin adiga maxaan oran karnaa aad baad mahadsantahay su'aasha dhowr jeer horena waa la weydiiyey su'aashaas dee kolley anigu wax intay igu dhow ama igu xeeran labadeeda family oo dee hibo ah oo dee maanta la sheegi karo ma garanayo laakiin afarleedu waa tiriyaan laakiin qof caan ahoo dee gabay tiriya ma garanayo haa ma jiro laakiin haddana marka dhinaca guud laga eego labada dhinacaan ka soo jeedaa waa dad aan gabayada lagaga horeyn
barnaamijka daawadayaal aad daawanaysaan waa barnaamijkii bandhiga jacaylka waxaanad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ee RTN TV in halka aan goobta aan ku suganahay aan barnaamijka ku daadahaynayaana waa ka hotel uu la'aanteedba aanu noo suurtagelin barnaamijka oo noo hirgelisay inaan ku duubno barnaamijka bandhiga jacaylka dhinacayga waxaa fadhiya abwaan jirdac oo isaguna ilaa maanta aanu dhankan u rognay oo dhankan aanu rognay qisooyinkii jacaylka sheekooyinkii social media qofkii qiso ku dhacday toos buu noogu yiman karaa oo barnaamijka ula soo xiriiri karaa magaaladuna waa Burco oo magaaladii Burco xarunta gobolka Togdheer kulliyada qudheeda Burco jacaylka kama maqnay dhinaceedii kaga jirtaa baan oran karnaa waxaan doonayaa maasadii indhudi dad mahadsan tahay walaashay barnaamijkan waa barnaamij umada xiiso gelin doona muuqaalka aad ka qaaliga teeriyo goorahanba saaxiibkay Yaasiin ayaan aad iyo aad uga mahad celinayaa waxaan gelin doonaa maasadii dhudi waxay u dhacaysaa sida tan waan iska bilaabanaa ma faahfaahinayo insha Allah tacaala waxay u dhacaysaa sida tan qorrax baalka dhigato dhanka bari daruuraha ku dhambaashay ka ahoo fallaadho ku dhacayaan ama meel dhac loo huray dhabaq faraq u dheer yahay biyihii dhex qaadeen robla dhacu mushaaxo raagu dhaa ka leeyahay shimbiruhuna dhowr nooc markay wada dhawaaqaan dhegtu ay u nugushahay dhulku wada cagaar yahay dheelkuna dhabuhuna qarsoomeen dhirtu wada udgoon tahay dheelkuna ka daran yahay sida dhibicda roobaan alla ma hadal lala dhacay nimcada dhufayska ah oo baarqab dhalasho leh intuu laba u kala dhacay oo madaxa hoos dhigay dhibiqoysay dabadeed dhabarkiiyo hareeraha mid kalena u dhaar qaba anigana dhabeel yahay dhiggaa waxa ku nool dumar haddii aanan dhoohnayn kuma dhaafsadeenadi dhiiggiyo naftaa tahay dhudda waaxyahaygiyo lafta dheere dhabarkiyo dhisme igu lamaano jidhku dhowrayaa tahay waa gaari dhaqashale dhabeel weeye garashale dhegna waxay ka tahay dhool inan yahay dheg iyo joog noola kuu dhigmaan jirin quraysh dhowrsan baa tahay asal dhaqanle baa tahay dhabtii hooyadeedu eg adigaan wax dhiba iyo dhalandhoolba aragoo dhuuxii yuusuf baa tahay dhaqankeenna may hurin dhawaaq hadal xun may baran wareeg inay dhaqaaqdiyo wahay dhiiranaan malix dhabankeedu waa curub sida dhayda caanaha labeentii ku dhegantoo wadaad baa ku dhaatoo dheeheedu waa dhalan dhan kastoon ka eegaba waxaan dhaafo maan arag talow dhuuxi boorame sidii ma u dhex qaadaa dhambaa layga soo diray dhinacii gabiiley u dhabaabacaa idhi hargeysana dhaqsow tegay dhuusi raadinteedii dhismaha caashaq meeshii rugti dhaabadaysiyo saaxil dhugu anaa idhi ma dhawaan dhabbay helay intaan dhamac jacayl galay halkii dhidib u aastiyo dhamacan wana u dhaxay boodhari dhabtiisii maxaa dhayma ii noqon yarta dhaafi maaye dhabigii Togdheer baan isa sii dhex taago dhalanteed maxaan deey dhaloontida hablaayaga guntigayga dhaab adag suunkii kaga dhagsiiyo intan dhiilka buuxsaday caynaba u dhaadhacay maxaa geenya dhumucliyo joogto guud haldhaalay dhoofkaygu soolgaadh goobtii aan wax dhimi jirin dhuunigii la cunayiyo dhakal xoor ku dadanyay igu soo dhoweeyeen maxaa inan dhud loo wacan timuu dhabarka taabteen dhaclihiiyo hiddaa xidhan cambariyo dhallaankeed dhooblayaal la soo shiray dhaameelkii waxaan galay dhuma iyo sanaag maray dhulkii uduga weeyaan dhaxal siisay odayaal daalo dheeman qaali ah tan iyo xeebtii dherarayd midhishiyo inta u dhow dheeggaa dayaxi tahay marra dhaafi maayee waxa aan dhigaal iyo taariikh qalbigu dhigay dhahar baan ka soo helay dhabti taan u baahnaa nafta way dhirbaaxdee allow dhudi gargaaro dhimashada ha gaadhsiin maasadii dhudina intaasay igaga eg tahay kulley barnaamijka guntii iyo gabagabadii ayuu ku sii siqayaa sidoo kale waxaa ku howlan wariye Yaasiin Dhagacade oo runtii isagu si hagar la'aana ugu hagar baxay barnaamijkii ayaa intaa inaga dhaamaaday in la caawi dhex mushaacayni haday tahay jacaylkii haday tahay sheekooyinkii waxaana igu martiyaha abwaan jirdac oo aad wada taqaanaan oo abwaan caana ka gobolka runtii dhankan iyo dhanka baan u qaadnay qisooyin haday tahay jacayl aad naga daawaniseen shaashada caalamiga ee RTN in barnaamijka aad arkaysaan sida quruxda badan leh waxa ugu hawlanaa oo kamarada aad arkaysaan in maxaa niisoo gudbinayay Yaasiin Dhagacade oo kale hotelka oo waxaan ku iyaguna si hagar la'aan noogu hagar baxay in barnaamijka waxaan ka maqnayn Europe Beach Salon intii anagu isku duuban haddaan nahay halwadeennada in maxaa anaga Yaasiin iyo waliba abwaan jirdac